السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام وإذن سلام عليكم قاليها meel walba adduunka aad ka joogtiin waa walaashiin Maryama soo dhawaada ayaan idin leeyahay halkaad naga daawanaysaan waa Iskaashi Family iyo Dacwo Family ilaahay waxaan ka baryayaa qof walba muslim ah meesha ku ooman yahay Allah ka waraabiyo qof walba xanuunsan Allah caafiyo qof walba caafimaad qabana caafimaadka Allah u siyaadiyo qof walba caruur haysanna ilaahay uwad baari ha siiyo qof walba weli aan guursaninna ilaahay guur khayr qabo ha siiyo khaasatan asxaabta nagu xiran ilaahay muraadadiina ha idin sahlo wax walba ilaahay ka rajaynaysiin ilaahay ha idin saqiro walaalaheen muslimiinta reer Falastiinna ilaahay cadowga ha ka qabto aamiin aamiin yaa rabbi insha Allah walaalaha qaaliga intaas kadib marka ugu horeysa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kommentiyadiina quruxda badan isugu jira dhiirigelinta iyo ducada dhiirigelintiina baa intaan kusoo gaarnay fahanteen meesha kasii wada insha Allah soo maanta muuqaalkeena sida aragtaan wuxuu ku saabsan yahay routiinkaas oo ah habeenkii fahanteen habeenkii shaqada aan qabto yacni habeenkii ilmahayga routiinkooda fahanteen soo marka sida aragteenba dabka waxaan soo saaray casho ayaan soo saaray cashadeena waxay ahayd salbuuka ayay ahayd salbuukadii ayaan dabka soo saaray soo marka salbuukada inta iga sii kareyso waxaan soo qaatay dharkii darad aan dhaqaayay laalaab ay u baahan yihiin soo maahan hadda sidooda ku sii daayo waxa waaye meesha kama dhaqaaqayaan marka dharkii aan soo qaaday ayaan laalaabayaa hadeertaan soo dharkii inta laalaabayo waa intay salbuukada ay sii kareyso marka habeenkii ilaahay markaas waxa u maleeyaa in waqtiga inuu ugu yar yahay sideedana habeenkii inuu waqtiga gaaban yahay baaba u maleynaya sababtoo ah habeenkii hadii aan ilmaha aan ku mashquulin ama casho iyo wixii inta ay saaran yihiin ayagtoodii aan qabanin waqtiga aad igu igu soo degdega 4 saac 5 saac iyadoo la marayo arkaan fahanteen hadaa ka faa'iideysto inta cuntada ay saaran tahay ilmaha aan kala toostana waqtiga waa ii barakoowa fahanteen saas waa waqtiga markaa ka faa'iideysatid oo ku barakoowa laakiin markaa la yacdid wuu kaasi carraa ilaahay amarkiis soo markaa habeenkii oo dhan waxaa ku mashquulaaba ilmaha cashada kari ilmaha u toosi yani 4 saac wixii ka dambeeyo waxaan jeclaa inaan free ahaado fahanteen oo oo aniga isku soo jeestaan jeclahay waxaan qabsanaa aan qabsado waxaan akhrisanaa akhristo saasaan jeclahay marka maqribkiiba markii la gaaro hooshayda waa bilaabataa fahanteen caawa dhar laalaabo waa iigu jiro waayo dharkaanayti inaan laalaabo oo hagaajiyo hadii kale waxa waaye kuwan darad dhaqaay waaye haddaan laalaabi waa jugjug meeshaada joog leh oo fahanteen ma dhaqaaqayaan la iikano shaqadina kugu sii badanay soo marka cashada intay ii saaran tahay dharkaan aan rabaa inaan iska laalaabo dharkaan waa kala bibixiyay dharkii wiilasha gooni dharkii gabdhaha wixii oo dhan aan kala bibixiyay aad ay u badan yihiin sariirta labadan sariir waa buuxsameeyna ku dhayn fahanteen soo marka hadda waxaan u soo laabtay salbuukadii aan u soo laabtay waxaan rabaa inaan ku daro bariis aniga salbuukada aad marka u jilacdo kuma daro laakiin ayadoo oo garmash aan jeclahay inaan bariis ku daro bariiskii ayada marka sidii la rabay isku karayaan isku soo beel isku noqonayaan fahanteen soo marka hadda bariiskii aan ku daray salbuukada kadibna wax yar cusub aan ku daray ayadana waa sii daboola haddana waan ka tagayaa dharkii aan ku laabanaya fahanteen armaajiyaashaan ku kala xaseysanaya oo toosinaya dhinacan weli waxa ii sii saaran qamiisyadii wiilasha iyo shakooyinkii gabdhaha fahanteen soo marka waa kala bixinaya qamiisyada shakooyinka iyo waxa waaye meelaha suraya marba inaan galiyo armaajada waayo si fiican u fadhiisanayaan waa la laabaa hadda fahanteen marka armaajada edab ma ugu jiraa meelaha la suraa marka ayaga hadda marka cambuuladii u soo laabtay salbuukadii wayba kartaybo inta armaajada toosinayo waa ii kartay kadibna waan ka dajiyay dabkaan u damiyay waxaan ku soo laabtay dharkii ayaan ku soo laabtay fahanteen soo hadda waxaan kala bixinayaa shakooyinkii iyo xijaabadii ayaan kala bixinayaa fahanteen soo shakooyinkii iyo xijaabada waxaan sameynayaa armaajada birteeda surayaa sababtoo ayaga birtaan surayaa sababtoo ayaga waa laalaaba hadii dhada armaajada edab ma ugu jirayaan fahanteen yani isku darsamaya waa leeloon camal waa fahanteen soo wiilasha qamiisyadoodana waan laalaabaya ayagana armaajadan gelinaya soo marka dharkii qaamraam waxaan ku soo wareeraba waa soo dhameeyay fahanteen armaajada waa soo ku soo xarsay kulli waa soo dhameeyay alxamdulillah shakooyinkina saana u soo suray go'yadii ilmaha iyo qamiisyadana hal meel isla geliyay
markay armaajadasan kuugu hagaagsan tahay oo dharka ku dhaqan yahay gurigaas shaqo ma taalo ma fahanteen raaxa waa ma fahanteen soo markaa qolkii maanta dhan aan ku rafanaynay waa qolkii ilmaha qolkii ayaan hadda hagaajinayaa daamankaan toosinaya maanta dhan daaqada way u balaqneed hadda waxaa waaye daaqadayaan ka xirxirayaa oo sariirihii aan goglaya ma fahanteen gabar abaaya waxay soo weydiisay sariiraha intay kasoo gaday Mombasa haddaad joogtid Bambaluula ka helaysaa ma fahanteen Bambaluula ka helay meeshaasaa lagu gadaa sariiraha marka meeshaasaan kasoo gatay aniga ilaahay amarkiis bahaatiyaan kusoo helay sariirahan sababtoo ah waxa oo isku design oo isku saan oo ma helays badanaa ilaa aad dhahdi ii sameeya waa ma fahanteen marka kanna wuu sameysnaa meeshuu yaalay saddex xabo noocaan ahaa rabaayaan dhehe hala iga qanciyay saddex oo saan ahaa rabaayaan dhehe labadii kalena ilaahay amarkiis sidii aan ku helay ma fahanteen markaas wax la sameeyay oo diyaarsan oo ahay marka sidii aan kusoo qaatay bahaati aan ku helay sometimes waxa waaye sida adiga aad rabtid ma helaysid ilaa aad dhahdi ii sameeya waa ma fahanteen laakiin meeshaasaa lagu gadaa sariiraha reer Mombasa haddaad tahay Bambaluul waaye ma fahanteen marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahantay soo marka hadda sariirihii ilmaha waa soo guglay waa soo dhameeyay qolkii xaqooya isku xaqinka yarka aan wada sariirta hoosteeda ku xaqay waa xaqinkaas carada iyo busta ayuu si fiican u xaqaya isku bahana waxa waaye rooga aan ku xaqay waa xaqinkaas rooga ma lagu xaqi karo isku baha vacuum ku fiicnaa laakiin hadda vacuum kii ma hayso maahan wixii ay sida wax lagu sameystaa soo marka ilmihii waxaan u soo diyaariyay sariirahoodii waan diyaariyay dharkooda jiifka mid kasta sariirta u soo saaray joodarigaas yarkan Zakariya cadda ku jiifto waa Zakariya cad sariir ma saari karay uu soo dhacaya ma fahanteen marka ku aamini kara sariirta joodarigaas yarka meesha loo dhigaa habeenkii albaabkooda u balqan yahay ma fahanteen sometimes waxa dhacda inuu soo carro oo ii imaado habeenkii marka sariirta waa aga cabsadaa haddana waxaan u shiday geedkii kaneecada waa anaga waxaan qabnaa kaneeca ayaan qabnaa marka hadda ilmihii waa soo qabeeyay meeshaas luuq waxa igu jira Maxamed Nuur igu jiro waxaan u marnayaa saliida xabsooda ma fahanteen saliida xabsooda aad ay u fiican tahay ilmaha u fiican tahay qofeen waa u fiican tahay yani cudur walba daawo u tahay ma fahanteen ilaa geeri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa saas dhahay marka saliidiyaan u marnayaa isha iyo wax walba ay daawo u tahay soo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sheegu dhow sheegan daawo waaye daawo walba ayuu ka fiican yahay ma fahanteen hadda wiilkayga Maxamed Nuur wuxuu qabaa sanbor ayuu qabaa soo markuu hindhisaayo ama hindhiso uu bilaabo oo zaid u hindhiso saliida xabsooda hada soo qaado asanka u mariyo madaxa u mariyo ilaahay amarkiis hindhisaas way ka baxdaa ma fahanteen soo marka waxaan sameeyaa anigana habeenkii markaan u qabeeyo korka u mariyaa markaan u soo qabeeyo subaxdii marka waxay ku soo kacayaan fahmi ku soo kacayaan ma fahanteen ilmo oo waxa ku soo kacay firfircoon oo maasha Allah ma fahanteen saliidana aad ay u fiican tahay marka Maryama ruuxi ayadana hadartaan waxaan u marnayaa saliida ayaan u marnooyaa Maryama ruuxi ayaan xijaab u gelinoyaa sababtoo ah maadaama asxaabteena ay caawina la joogto ama muuqaal aan duweyno waa inay xijaab u geliyaa ma fahanteen waayo markaa muuqaal duweysi iyo marka kale oo ay kala duwan yihiin xaaladaha anigaas ay jeedin xijaab iska dhaafay gasaar xataa ma qaata markaan shaqahayo soo markaa jikada ayaan ku soo laabto waxaan qasayaa caana ayaan qasayaa baaka caana iyo waxaan isku darayaa hal koob oo maxaa biyo ah biyaha waxa ugu darayaa waayo caanaha way culus yihiin fahanteen wax yar oo sokorna ugu darayaa cashadoodii ayaan u diyaarinayaa cashada kadibna waxa waaye markay casheeyaan ani markaa u soo qabeeyo kadib ay casheeyaan markay casheeyaan kadib wax yar ku nasanayaan markaas ayaan seexda dhahaa inta casheeyaan hadana uma soo qabeeyo waayo waxa fiican markay ilmaha u qabaysid markaas inay casheeyaan si fiican ay ugu degsanayaan ayagana fresh waa moogtahay soo marka hadda cashadooda ayaan u diyaarinayaa aniga ay sugooyaan fahanteen السلام عليكم وعليكم السلام maxaa sugaysiin hee cunto maxaa sameynaysiin kadibna waa kaa waayahay Zakariya cadde wewe Zakariya cadde hay cunto waa noo imaada hay bismillah Zakariya waa kaa kiisa waa kaa cunto
cunto intaan la cunin ka hor maxaa la dhahaa bismillah waa zikri bismillah wani waa cunaysaa yaa bismillah dheh maasha allah yaa la cun cuntadii cun maxamed عدي زكريا عدي زكريا عفوا ما شاء الله زكريا عانو عويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آخرنيسين محل يقول الله واحد يقول الفلق يقول بالناس يقول الله واحد قبل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قدم علينا باسمك اللهم أموت وأحيا واي حوين وناكسن ليلة سعيدة وين وناسا ليلة سعيدة. Good night. okay zikri cadde halkaas oo seexday marka booskiisu imaanaa ilmaha intay adkaarta akhrinaayeen hurdo ayaa zaa'id u haysay Zaynab deganna hortooda ayay seexatay oo markay cashada dhameysay way seexatay waayo aaday hurdo u haysay Zakariya hadda booskiisu soo dhigay adkaartooda ay akhristeen adkaarta kiskis leeyo loo baraa ma fahanteen waayo ilmaha markay yar yihiin waxa ay qabsadaan markay weynaadaan kama fuqaan ma fahanteen insha Allah walaalaha qaaliga intaas ayaan jeclaystay inaan ila qaybsado intaynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono waxa idin leeyahay iskaashato ma kufto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh